السلام عليكم soo dhawaada kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waxaan lahaa gabadha marka dhalaan kadib in calooshii ay weynaato oo maxaan lahaa jeexjeexman ay yeelato kale calooshii weynaato iyo in maxaan lahaa gabdhihii ay leeyihiin ilmihii ma nuujinin oo kale naaskiya naga dhacayo marka maxaan lahaa muuqaalka taasaan kaga hadli doonaa soo dhawaada haddii ay tahay markii kugu horeysa aad soo booqato channelka subscribe noo saar gambaleelkana furo si muuqaalyada cusub maxaan lahaa soo dhigna ay kuu soo gaaraan haddii hore aan ula joogtay oo familka aad ka tirsan tahayna maxaan lahaa like noo saar si dad badan u sii gaarto asxaabtaadana u sii share garay marka soo dhawaada laba u kala qaadaynaa oo waxaan u kala qaadaynaa maxaan lahaa qaybta oo gabdhaha ay leeyihiin naaska manuujinin oo naaska naga dhacayo iyo qaybta dambe oo ahaa caloosha fakatay oo maxaan lahaa iyo jeexjeexmanka ay caloosha yaranayso iyo sida lagu daaweyn karo marka labadaas aan u kala qaadaynaa haddii aan ku horumarno qaybta hore oo ah ee gabdhaha ay diidan yihiin inay ilmihii nuujiyaan oo kale leeyihiin naaska naga dhacaa ninkiana naca oo naga tagayo iyo waxaas ay leeyihiin oo kale taasaan ku hormaraynaa horta naaska kuma dhaco nuugista cunuga oo nuugayo kuma dhacayo maxaa lahaa kumana weynaayo nuugista cunuga oo nuugayo kumana dhacayo laakiin waxaa jirta gabadha markay uurka leedahay ayuu maxaa lahaa gabadha naaskeeda uu weynaadaa liana markay gabadha ahayd intaysan guursan naaskeeda woo yaraa caana ma gelin maxaan lahaa wuna yaraa xajmigiisa intuu la ekaanayo mar haddii uur yeelato gabadha wuxuu bilaabaa naaskeeda haddaba gabadha markay uur yeelato intii aysan ogaanin inay uur leedahay kooda hore naasaha xanuun ka dareentaa oo calaamadaha gabadha maxaa lagu arki karo intaysan ayada is ogaanin in uur leedahay ko waxaa kamid ah inay naasaha xanuun ka sheeganayso waayo jirkeeda isbedelay marka gabar markay uur ka yeelatay xanuunka ugu horeeyay intaysan uur yeelan ee isku aragta laga yaabo inay tahay in naasaha gabadha ay xanuunaan oo kale oo maxaa la hadda maqasho ay sameeyaan hadhowti inay tiraahdo cunuga naas ma nuujinayo naaska iga dhaca waa qalad qofka asaga uu fahmi karo marka maxaa la dhahaa naaska kuma dhaco nuugista cunuga oo nuugayo ee naasaha gabadha maalintii uur yeelata ayay bilaabaan inay fidaan iyo weynaadaan ay bilaabaan ilaa ay ka dhalayso mar haddii dhashay kadibna maxaa lahaa nuugista waxba cunuga naaska waxba maxaa lahaa kama bi'iso ilaa ay caafimaad u tahay maahanin sababtoo ah maxaa lahaa naaska dumarka waxaa ku badan kansarka ku dhaca naasaha ku badan haddii marka gabadha ay naas nuujin badan ay samayso oo kale oo ilmo badan ay nuugeen oo kale ama cunugeeda ilaa 2 sano kale ay nuujisay ama xilli dheer cunug ilmaha oo gabadhan ay naas nuujinayso kale inta badan waxay u badan tahay insha Allah in gabadhaas kansarka naasaha uusan ku dhicin marka just adigoo qurux raadinayo oo maxaa la naas ay ka dhacayo nina ay ka tagayo waxaas ka fikirayo ama dhahay cunugaada naas la'aan u dhigtay ogow maxaa lahaa in halis kale oo caafimaad adiga aan noloshaada ku doonatay just qof ka tagay ama cunug naas dhacay ama qurux iyo isteelka dhumay ha ku iibinin noloshaada iyo caafimaadkaada ha ku iibinin insha Allah sidii Ilaahay looga bartay waxay u badan tahay gabadha haddii naaska nuujiso kansarka naasaha inuu maxaa lahaa uusan ku dhicinin ama uu yar yahay tirada oo ku dhaco inta badan wuxuu badan yahay dadka aan nuujinin midda kale gabadha markay naas nuujinayso kale waxaa haboon inay rajastiinada xirato gabdhaha badanaa waxay u badan yihiin hadiisan xataa naaska nuujin ay diiday inay cunuga nuujiso rajastiin ma xirato oo marka sideeday ku socotaa marka nuugistan waxba ilma ma dhibaynin waa waxa maxaa la dhibka keenaya waxay ahayd fiditaanka uu naaskan weynaaday culeyskana uu ku siyaaday marka waa inay xirataa naaska wuxuu sameynaa inuu hoos aado liana marka aad culeys wato ma taagnaan kartid waxay u badan tahay marka in xoogo dhabarka soo laabto hoos aadiday u badan tahay marka adiga culeys wadid marka naaskana waa sida Ilaahay ku abuuro ahaa hadda markii caana galan culeys uu haya wuxuu isku dayaa marka culeyskiisi ma xajin kariyo inuu marka xoogo hoos aado isku dayaa marka gabaray adiga waxa laga rabaa inaad rajastiina adag xiratid أنا عنق محل ناس كعانن قلاي عنق النوجيني كسوقات محلها وإنها رجستينات هذا كحرتها كوقة خفيف كأ ومحلها جروها الوجو قبلها وحب بديهن مركي مجال هذا يعني مد أذاق ومحلها لبس إني حرتها مركي جرو جو أنا مد خفيف إيه حرتان وحاولتها أنت نوجينا وكجر تدمت كخفيف كهمك وأنفعها لأن عاني الناس كعانن قلين علا سوي شيء محملي كريب مد كان خفيف كأ waxaa loogu talagalay midka adeega ah oo maxaan lahaa lebiska magaalada u aadid inaa xiratid 24 hour ku joogtid guriga habeenkina ku seexatid hadii ay ku dhibayso kale in habeenka ku seexatid just marka saacada jeefka aad joogtid dharkaada jeefka aad gashanaysid waxa ka xirataa maxaan lahaa kan qafiifka ah laakiin maalintii horan intii aad soo jeedid oo dhan waa inuu kan adag kugu jira hadii maxaa lahaa furfurkiisa aan sidoo kale mid waxaa jira asaga soo adag oo just badan leh maxaa lahaa ilmaha laga nuujin karo oo gabdhaha naaska nuujiyo loogu talagalay I think in Soomaaliya yaro laga helayo oo maleena insha Allah marka
وين رجستينada xirataa maxaa lahaa xilligan asnuujinta ay ku jirto oo kale maxaa lahaa waa inay push up sameysaa oo jimicsi ay sameysaa saa muuqaalada ka arkaysiinba push up jiro oo maxaa lahaa gabadha ay sameynayso kale intay gacmaheeda dhulka dhigto maxaa lahaa faraha inay ku istaagto marna hoos u degayso marna ay kor u kacayso kale maxaa la push up ka saacidaa murqaha caloosha iyo naasaha in maxaa lahaa ay adkaadaan oo ka saacidaa waxaa kaloo jira kareemo la mariyaa jirto oo gabdhaha ay isticmaalaan oo kale oo maxaa lahaa muruunada iyo waxaas u siyaadinayo marka waxaana haboon gabadha marka dhashay in isla markii aysan oraxad ku bixinin inta ayaan ahay maxaa lahaa guriga ay joogto leena waxa ku yaraahay jirkeeda collagen-ta ku yaraanayso qaybta soo waxaan kaga soo baxnay qaybta ahayd maxaa lahaa cabashadii gabdhaha ay ka cabanayeen ma nuujinayna naaska ragaracan ogow naaska aan nuujinaysid cunuga adiga caafimaad ku tahay oo maxaa lahaa eedan kugu jirta inta cunuga caafimaad u tahay ka badan ay adiga caafimaad ku tahay just cunuga hadii uu naaska waayo noloshiisa uu wadan karaa laakiin hadii gabdhaha aysan naaska nuujin oo kale hadii xataa kansarkaas uusan ilaahay ka badbaadi uusan kugu dhicin xanuuno kala jiro gabdhaha ku dhaco oo maxaa la xaga naasaha hadii aysan nuujin oo kale caani ay cishtaan oo kale marka insha Allah isku day in dhamaan ilaahay caafimaadna wada siiyo ilmahana aan cunugaada aan naaska siisid sida kale isteelkaada ku sixi kartid aan ku saxdid marka qaybtan waxaan kaga hadli doonaa qaybta maxaa lahaa in caloosha aysan fakanin ama dildilaac aysan sameynin oo kale oo maxaa lahaa qofkii seelkiisa soo u saxnaado horta gabadha ku marka dhasho waxaa loogu talagalay inay xirato suunkan caloosha lagu xirto oo kale hadii qalin ay ku dhasho kale hore ma ka xiran karto ilaa in dhakhtarkeeda ay kala tashata maahan hadii qalin aan ku dhashay dhakhtarkaada kala tasho goormee xiran karaa goormee bilaaba laakiin hadii ay caadi u dhasho oo maxaa lahaa dabiici ah u dhashay isla daqiiqadii aad dhashay inay xiratid waaye marka xiranaysidna waa inaasan suuqa iska xirin gabdhaha badan waxay ka cabaadaan in maxaa lahaa xanuun oo ku haayo ama jirka biyo gale ay leeyihiin oo kale hadii dhibaatooyin badan ay ka sheegtaan markii iska xirashadaas ma haboono mida kale hadaa xiratid waxaa laga yaabaa in calooshu maxaa lahaa fidaysa maxaa lahaa uu celiyo laakiin jeexjeexi ma bi'ihayo marka jeexjeexi soosan u imaanin oo kale hadii xilliga uurka aleed oo kale jeexjeex uu kugu imaaday soosan kugu sii badan inta badan jeexjeex culiskiisa wuxuu imaadaa gabdha marka dhashay kadib marka intii aadan dhalin oo kale waxaa raasataa kareemo caloosha la mariyo si marka dhashid isla markiiba calooshaada u marisid murqaha caloosha kaliya ma ahan inaad marisid إلا وريق دبرك إنا مرسد وهاي لأن caloosha murqaheeda ilaa ay dhabarka haystaan cunuga markuu uurka lahaa ilaa ay dhabarka fiidayeen marka waa inay maxaa lahaa kareenkaas ay hore u sii qaadataa markay dhasho eeg maxaa lahaa kareenkaas caloosha wareegeeda ilaa ay dhabarka murqaha jira ee dhamaan ay marisaa si maxaa lahaa markay dhasho kadib jeexjeexi caloosha ku imaan lahayo kale uusan ugu imaaneen maxaa lahaa kii hore ugu yaalin oo kale uu calaamadihiisa xoogo uu dugdug usii noqdo usii baabao waa inay kareebooyinkaas haysataa oo kale maxaa lahaa suunkaasna ay xirataa maxaa lahaa jimicsina waa inay sameysaa oo kale oo murqaha caloosha oo kale in intay gabadha seexato kale madaxeedii garbaheedii soo laabto lugaheedii soo laabayso kale waana jimicsi sameysaa jimicsiga gabadha ay sameysaa maahan kan caloosha kaliya inaad sameysaa kan dhabarka inaad sameysaa asagana waa loo baahan yahay sababtoo ah murqaha caloosha oo kaliya hadaa ka adeegtid murqihii dhabarka ayagana uurka qayb ay kala haayeen maxaa lahaa culayska cunuga iyo biyihiisa iyo bidiisa culayska geesi ka hayeen murqaha maxaa lahaa dhabarka wareega galayo marka jimicsiga markaa sameynaysid sidoo kale isku day inaad qasab maahan inaad jim aadid adigu gurigaada joogtid just computerkaada guriga ku yaala ka daaro youtube-ka gal ka daaro fiirso sameysa adigana kareenka marso maxaa lahaa suunkaada xiro adigu cunugaadis inta ku jiifo oo maxaa lahaa meel aadan jim aadanin maxaa lahaa magaalo iyo maxaa lahaa culays ku gelin ay gurigaada ku sameyn kartaa isteelkaada saxan kartaa maxaa lahaa umashana ka soo bixi kartaa adigoo qurux badan isteel ah waxna aysan ka muuqanin inta badan waxaa haboon gabadha markay dhasho maxaa lahaa meesha ay maxaa lahaa ay sokor badan ay ka cabi lahayd oo kale ama cabitaan baraf leh wax qaboobay caano ee daldali lahayd waxaa haboon in biyo kulul ay badsato hadda dunida horumartay maxaa lahaa gabadha markay dhashay biyo kulul la siiyaa Soomaaliya markay dhashay laakiin waxaa lagu dhahaa isla markay dhashay waxaa lahaa wax qabow waa loo raadiyay baraf dhab marka barafka asaga qofka markuu qabow dar alaawayada calooshii murqaha iska fiidayeen iska jilcaayeen marka gabadha haday rabto inuu seelkeeda saxnaado waxaa haboon in maxaa lahaa biyo kulul ay cabtaa sokorta jirka ayada kala daadiso hadii maanta dhan shaah cabaysid iyo caano booro biyo maxaa lahaa sokor lagu soo shubo maanta 12 ay wadid taas calooshaas inay fido waa mid loogu talagalay marka hadii arabtid in calooshaada aysan fidinin maxaa lahaa seelkaada hore ay kugu laabato biyo kulul oo maxaa lahaa abasata biyahaas kulul cunug waxay ka caawiyayaan inuu anaska caano badan u galo maxaa lahaa ana kuleelkaas dhiiga kululeyna way u fududaanay marka inuu cunuga caano badan helo maxaa lahaa adigana faa'iido ku tahay cunugina faa'iido u tahay caano u hela adigana faa'iido ku tahay oo maxaa lahaa xeertii wixii ka
gubantay marka intaas aan kaga baxno in maxaa la dhahaa waa inaa saxdaa marka dhashidoo kale kadib maahan wadaananahay foolan ka imaaday maxaa la dhahaa fadhiga maxaa la dhahaa saan oo fadhiisaa waa soo godanaa maya gudnaashaan gudnaahaysid waxay sababay murqihii caloosha inay sii laabmaan just hadayta way soo bixin marka saa marka u fariisatidoo kale qofka uu gabar naas qariyaysa camal saas aad dhahdo isgudid caloosha murqaheedii wayba sii laabmeenbo hal istayba laabnaayeen mid labada ugu sii dartay marka gabdhahan maxaa lahaa tvda ka shaqeeya camal just waa inaad saas u taagtaagantaa adiga dhan xanuun kastoo ku hayo lianna daqiiqadan ha fiirin waxaa fiirisaa nolosha dambe ka fikir iyo quruxda dambe marka fadhigaadoo kale waa inaad kontrolshaa markaa taagantahoo kale waa inaad kontrolshaa waxba aadan islaabinin xayi iska dhig xayinimo u istaag markaa fadhiisanay sidoo kalena xayinimo u fadhiyo waxba ha isla laabin si caloosha murqaheeda aysan usii dabcinin maxaa la dhahaa aysan balaarka uusan ugu sii darsamin hadday dhacday inay calooshii fido ama maxaa la dhahaa dildilaaci oo soo baxoo kale maxaa xal ahoo la samayn karaa lagu baabi'in karaa qaliinka horta anima ku taliyahayay maxaa la dhahaa inay gabadha qaliin gasho ee caloosha ku yaraynaysa ama maxaa la dhahaa dildilaacaasi waxaasi ku bixinayso qaliinka wuxuu riskigiisaas ka badan laakiin waxaa jiro qalab maxaa la adeegso oo maxaa la qofka uusan asagoo qaliin gelinin jisti caloosha kor masaaj ahaan loogaga sameynayo xeertii ka shiila oo maxaa la oo calooshii xeerta caloosha hadii la shiilna caloosha way isku dhacay wuxuu kaloo sameeyaa xeertoo shiila murqaha calooshana wuu adkeeya dildilaaca caloosha ku samaysmane wuu ka bi'iyaa marka hadda anima sheegi kari in Soomaaliya laga helo taas iyo in kale ma sheegi kari laakiin qalabkaas oo jira waa qalab maxaa lahaa dunida oo dhan laga isticmaalo Afrikadan waa laga isticmaalaa laakiin aniga Soomaaliya ma ogi in hadda uu yaala ama la geeyay in kale ma ogi marka waa qalab yar oo maxaa lahaa ultrasonka qofka la saarayo hadda aragtan caloosha laga saarayo kale just kaas wax ma dhaamo taas caloosha loo mariyaa maxaa lahaa xeertoo shiila oo maxaa lahaa xeertoo ka shiila dildilaacaasna wuu biina murqaha calooshana xoogo wuu adkeena oo qofku xoogo yar qof maxaa lahaa quruxdiisa xoogo yar ku qanacsan oo ka gabdhaha markay dhalaan marka inta badan iskuma qanacsan steelkooda iskuma qanacsan fadlan adiga isku qanac kadib ay dadka ku qancin karaan marka muuqaalka uu daba dheeraaday inta san ku soo gabagabeynaa waxa rajeynaa insha Allah inaad ka faa'iideysataan soo dhawaada markaad kugu horeysay tahay subscribe noo saar kambalelkana furo hadda hore noola joogtane like noo saar si dad badan u sii gaaraan asxaabtaadana u share gareeyo soo dhawaada